guddiga nabadgelyada degmada Axmed Macalin Haruun ee magaalada Hargeysa ayaa si weyn u soo dhaweeyay khudbadii taariikhdiga ahayd ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyay kulankii lagu wada hadalsiinayay Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana ay sheegeen in madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku garab taagan yihiin khudbadaasi oo ku garnaqsaday waxaana hadaladoodii kamid ahaa madaxweynaha iyo wafdiga la socdana Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan u salaameynaa isaga iyo madaxda kale ee la socotaba waxaanu aad iyo aad u taageeraynaa khudbadda waanu dhageysanay wariyihii meesha joogay shirkuna khudbadda madaxweynaha Muuse Biixi inay ugu dheerayd uguna qiimo badnayd waanu ka dhageysanay idaacadda waa wariyihii goobta joogay annana waa dhageysanay iyadoo af Ingiriis uu ku hadlayo madaxweyne khudbadda aad iyo aad baan u taageersanahay aad iyo aad baan u taageersanay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa bismillaah alxamdulillaah halkan waxaan adaanu nahay degmada Axmed Macalin Haruun ummadda ku nool iyo bulshada ku nool aanu ka hambalyeynaa aanu ka taageeraynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi khudbadu shalay ta akhriyay magaalada Jabuuti uu ka akhriyay shirkii ballaadhnaa iyo maxay ahayd wada hadalkii la isku yeeray inaan xubin dhaafahaynin arina aanu hoos marahaynin waanu ognahay madaxweyne habeen iyo maalin baheegan baanu ku nahay adaanu nahay shicibkaagii iyo shaqaalahaagii iyo bulshadaadii habeen iyo maalin baheegan baanu ku nahay waanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay hambal iyo madaxweynaha iyagu nin la soo hoos mari kara maaha nin la isugu qayshan kara maaha nin la hoosaasi kara maaha Muuse Biixi Cabdi uu ku mahadsan yahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay waxaanu u taaganahay soo dhaweyntaada bulshada Axmed Macalin Haruun ku dhaqan degmada Axmed Macalin Haruun soo dhaweyntaada u taagan tahay heegan bay kuugu taagan tahay bari marka timaadid inaan kugu soo dhaweyno laamida caddaha weyn ee madaarka Hargeysa aad waxaan u taageeraynaa madaxweynaha iyagu khudbadu halka ka akhriyay Ingiriisiga iyo turjumaadii aanu dhageysanay waxaanu leenahay hambal iyo madaxweyne wixii aad halka kaga hadashay waan ku taageersanahay aad iyo aad baan ku taageersanahay dadka iyaga Somaliland darka xaaladayada iyo halkaanu nahay waa muqaddis goonigoostadkayga waa muqaddis waanu taageersanahay madaxweyne waan ku taaganay soo dhaweyntaada dooni mayno shalay xasuuq inagu dhacay inuu nagu soo noqdo wixiina gaadhay xanuunkeedii baan haya annagu wadanka iyaga madaxweynaha ayaanu taageersanahay wax alaala wixii uu noo soo gooyo madaxweynaha iyagaanu taageersanahay aan maxay hiday soo dhaweynaynaa kelmadda uu yiri baan soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyagu waana muqaddis waxaanu doonaynaa maxay hiday inaanu birina soo dhaweyno madaxweynaha iyaga soo dhaweyno gacmo furan ku soo dhaweyno wax alaala wixii uu yiraahna madaxweynaha iyagaanu taageersanahay waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha khudbadiisii qaayaha lahayd ee uu kaga hadlay magaalada Jabuuti ama uu ku tagay ama aanu ka filaynay in ay noocadaas ka soo baxayso ama aanu maartay kalsooni fiican siinay beritoona soo dhaweyntiisa iyo hawshiisa aanu haddii la ka dhigo u diyaar garoonayno Soomaaliland saasaan ku taageerinaa iyo muqaddisnimada muqaddis guddiga nabadgelyada degmada Axmed Macalin Haruun ee magaalada Hargeysa ayaa si weyn u soo dhaweeyay khudbadii taariikhdiga ahayd ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyay kulankii lagu wada hadalsiinayay Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana ay sheegeen in madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku garab taagan yihiin khudbadaasi oo ku garnaqsaday waxaana hadaladoodii kamid ahaa madaxweynaha iyo wafdiga la socdana Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan u salaameynaa isaga iyo madaxda kale ee la socotaba waxaanu aad iyo aad u taageeraynaa khudbadda waanu dhageysanay wariyihii meesha joogay shirkuna khudbadda madaxweynaha Muuse Biixi inay ugu dheerayd uguna qiimo badnayd waanu ka dhageysanay idaacadda waa wariyihii goobta joogay annana waa dhageysanay iyadoo af Ingiriis uu ku hadlayo madaxweyne khudbadda aad iyo aad baan u taageersanahay aad iyo aad baan u taageersanay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa bismillaah alxamdulillaah halkan waxaan adaanu nahay degmada Axmed Macalin Haruun ummadda ku nool iyo bulshada ku nool aanu ka hambalyeynaa aanu ka taageeraynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi khudbadu shalay ta akhriyay magaalada Jabuuti uu ka akhriyay shirkii ballaadhnaa iyo maxay ahayd wada hadalkii la isku yeeray inaan xubin dhaafahaynin
arrinna aanu hoos marahaynin waanu ognahay madaxweyne habeen iyo maalinba heegan baanu kuu nahay haddaanu nahay shicibkaagii iyo shaqaalahaagii iyo bulshadaadii habeen iyo maalinba heegan baanu kuu nahay waanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay hambal iyo madaxweynaha iyagu nin lasoo hoos mari kara maaha nin la isugu qayshan kara maaha nin la hoosaasii kara maaha muuse biixi cabdi wuu ku mahadsan yahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay waxaanu u taagannahay soo dhaweyntaada bulshada Axmed Macalin Haaruun ku dhaqan degmada Axmed Macalin Haaruun soo dhaweyntaada u taagan tahay heegan bay kuugu taagan tahay berri markaad timaadid inaan kugu soo dhaweyno laamida caddaha weyn ee madaarka Hargeysa aad waxaan u taageeraynaa madaxweynaha iyagu khudbadu halka ka akhriyay ingiriisiga iyo turjumaadii aanu dhageysanay waxaanu leenahay hambal iyo madaxweyne wixii aad halka kaga hadashay waanu ku taageersanahay aad iyo aad baan ku taageersanahay dadka iyaga Somalilanderka xaaladayada iyo halkaanu nahay waa muqaddis goonigoostadkayga waa muqaddis waanu taageersanahay madaxweyne waan ku taaganay soo dhaweyntaada dooni mayno shalay xasuuqi nagu dhacay inuu nagu soo noqdo wixiina gaadhay xanuunkeedii baan haya annagu waddankayaga madaxweynaha ayaanu taageersanahay wax alaala wixii uu noo soo gooyo madaxweynaha ayagaanu taageersanahay aan maxay ahayd soo dhaweynaynaa kelmadda uu yiri baanu soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyagu waana muqaddis waxaanu doonaynaa maxay ahayd inaanu berrina soo dhaweyno madaxweynaha iyaga soo dhaweyno gacmo furan ku soo dhaweyno wax alaala wixii uu yiraahna madaxweynaha ayagaanu taageersanahay waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha khudbadiisii qaayaha lahayd ee uu kaga hadlay magaalada Jabuuti ama uu ku tagay ama aanu ka filaynay in ay noocadaas ka soo baxayso ama aanu maartay kalsooni fiican siinay beritoona soo dhaweyntiisa iyo hawshiisa aanu haddii la ka dhigo u diyaar garoonayno Soomaaliland saas aan ku taageerinaa iyo muqaddisnimada muqaddis